miyaad aaminsan tahay wax kastoo aad akhrido inaad xasuusnaan karto ama aad xifdii karto? Elon Musk oo ah ninka dunida ugu hantida badan ma haysto hal digri oo jaamacadeed ee wuxuu haystaa 2, laakiin guusha uu nolosha ka gaadhay kuma sababayo waxbarashadii uu jaamacadaha ka helay, mana aaminsana in qaabka waxbarashada uu yahay mid waxtar u leh ardayga. Elon Musk ayaa leh qaab isaga u gooniya oo u sahlaya wax walba uu rabo inuu hal mar akhriyo inaanu ilaawin. haddii aad adiga laftaadu qaabkan isticmaashana waa hubaal inaad gul badan ka gaadhi doonto dhinaca akhriska. Magacaygu waa Mo Carafaad. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkayga soo booqato, ha ilaawin inaad subscribe saarto gambaleelkana furato. aynu ku soconno muuqaalkeena maanta. Elon Musk waxa uu ka qalin jabiyey jaamacadda Pennsylvania, waxa uu sameeyey 2 digri oo kala ah dhaqaalaha iyo fiisigiska, isagoo markaasi qorsheynaya inuu jaamacadda Stanford ee California ka bilaabo PhD-giisii. inta aanu bilaabin waxbarashadiisa PhD-ga ayaa isaga iyo walaalkii waxay sameeyeen shirkad software oo lagu magacaabo Zip2. Musk ayaa mowqif cad ka taagan dhaliishiisa ku aadan nidaamka waxbarashada casriga ah. waxa uu aaminsan yahay in ardaydu aanay si dhab ah wax u baranin. qaabkan waxbarashada waxa uu ka aaminsan yahay inaan ardayda la barin inay si adag u fakaraan, sidoo kalena aan loo diyaarin inay dhibaatooyin xalliyaan. Musk waxa uu go'aansaday in waxbarashada isagu gacantiisa ula tago, isagoo markaasi soo urursaday buugaagtii maadadii uu rabay. la talin ahaanna waxa uu samaystay shakhsiyaad aqoon ay leeyihiin ku suntan. mid ka mid ah dadkii ugu horreeyay ee Musk la xidhiidhay waxa uu ahaa nin lagu magacaabo Jim Cantrell oo ah khabiir ama injineer dhinaca makaanikada ah. Jim Cantrell waxa uu sanadihii 1990 ilaa 1992 u shaqaynayay shirkad Faransiis ah, isagoo kala shaqaynayay dhinaca space-ka iyo satellite-ka. markaasi kadibna waxa uu ku soo laabtay Mareykanka si uu la taliyo dhinaca space-ka ah ugu noqdo hay'adaha ku shaqada leh. markaasi Elon Musk ayaa ka war helay aqoon-yahankan Cantrell sanadkii 2001 ayuuna telefoon u soo diray si uu aqoontiisa uga faa'iideysto. Cantrell oo hore aan Musk u maqal, mar dambe wax laga weydiiyey wuxuu yidhi Musk wuxuu ahaa ninkii ugu caqliga badnaa ee aan la kulmay. Musk markii uu telefoonka kula hadlay khabiirkan waxa uu sheegay inay muhiim tahay labadoodu inay wada hadlaan, wuxuuna wax ka weydiiyey suurtagal ahaanshaha in dayax gacmeed loo diri karo meeraha Mars. Musk oo markaasi kusoo hongoobay Russia oo uu ka raadsaday si uu u helo xog ku saabsan sidii uu dayax gacmeed ugu diri lahaa meeraha Mars, waxa uu kaliya markan raadinayaa xogaa la talin ah. Musk ayaa sidoo kale Ruushka weydiistay inay ka iibiyaan gantaal ka mid ah kuwa hawada loo diro si uu markaasi ugu isticmaalo inuu Mars u diro, laakiin nasiib xumo qiimaha gantaalkani ayaa noqday mid aad u sarreeya. waqtigaasina Elon Musk maanu ahayn bilyaneer, laakiin wuxuu haystay xogaa milyan ah, sidaas awgeedna maanu awoodayn inuu Ruushka gantaalkan ka iibsado. Musk oo markan tala ku xiirsan tahay ayaa xalkii u arkay inuu isagu rocket-ka ama gantaalka laftiisaba dhiso. waa marka uu Musk la xidhay khabiirka dhinaca space-ka ah ee Cantrell, waxa uu weydiistay inuu buugaagta ku saabsan rocket-ka iyo sida loo kiciyo ama ahiyo ama deemiyo si uu soo akhriyo. Cantrell wax laga weydiiyey ayaa yidhi markii hore waxaan islahaa Musk sidee ayuu xog badan ugala bixi karaa buugaagta, laakiin markii dambe waxaan ogaaday inuu wax kasta uu akhriyay xifdisanaa ama uu xasuusnaa. markii uu akhriyay Musk buugaagtii, waxa uu asaasay dhismaha rocket-kii ama gantaalkii ugu horreeyay ee shirkadiisa SpaceX ay isticmaali lahayd. Cantrell oo injineerka dhinaca makaanikada ee Musk buugaagta amaahiyey si uu soo akhristo ayaa markii uu ka war helay in Musk uu ku guuleystay kicinta gantaalkii ugu horreeyay ee Falcon 1 ayaa yidhi inuu xifdiyo wax kasta oo buugta ku ka akhriyay waxa igala siiyaa badan sida wax kasta uu akhriyay oo mashruuciisa ugu dabaqay. marka laga soo tago buugtan uu soo urursaday Elon Musk, qaacidada kale ee u saamaxaysay guushiisa waa inuu isku xeeray ama soo dhaweystay kuwii ugu fiicnaa maadadan uu rabay inuu wax ka barto. wuxuu la wadaagayay aragtiyaha, su'aalo ayuu ka weydiinayay, wixii tala ahna iyaga ayuu ka qaadanayay. khabiirkan dhinaca makaanikada ee Cantrell ee Musk buugaagta soo amaahiyey ayaa sidoo kale ka mid noqday shaqaalaha shirkadda SpaceX ee Musk uu sameeyey. waxaa laga yaabaa
inaad la yaabto inta buug ay kugu qaadanayso si aad u noqoto saynisyahan iskiis wax isu baray? Jawaabtu waa wax badan. Waraysi 2017 lala yeeshay Musk ayaa shaaca ka qaaday inuu ku soo koray buugaag, wax akhriskuna ahaa kaalinta koowaad ee koritaankiisa, markaasina waalidkiis ay lahaayeen kaalinta labaad ee koritaankiisa. Waxa uu guushiisa u nisbaynayaa waqtiga uu wax akhriska ku qaatay. Taariikhdiisa akhriskuna waa mid aad u cajiib ah, waxaana tusaale fiican u ah inuu yahay qof aad ugu guulaystay dhinacyo fara badan oo nolosha ah. Markii uu 9 jir ahaa, waxa uu bilaabay akhrinta qaamuuska encyclopedia oo dhammaystiran, kadibna wuxuu u gudbay inuu akhriyo buugaagta khiyaaliga ama fictionka. qiyaastii 10 saacadood maalin kasta ayuu akhrin jiray buugaagtaasi. Musk ayaa ku talinaya in la akhriyo buugaagta ay qoreen shakhsiyaadkii caqliga badnaa ee dunida soo maray, sida buugga Einstein, noloshiisii iyo dunida. Markii uu akhriyay dhammaan buugaagtaasi, Musk waxa uu wax badan ka bartay hogaaminta iyo himiladiisa si uu adduunka uga dhigo mid ka wanaagsan sidii hore. Inkasta oo qofka caadiga ah aanu haysan 10 saacadood maalintii uu wax akhriyo, haddana qaar ka mid ah dadka maalqabeennada ah iyo kuwa ugu xirfadda badan ayaa kuu sheegaya in wax akhrisku uu yahay mid ka mid ah siraha guushooda. Maalqabeennada kale ee sida Gates iyo Oprah ayaa dhammaantood ka marakacaya qiimaha akhriska iyo saamaynta uu ku yeeshay guulahooda iyo ganacsiyadooda. Warren Buffett waxa uu si joogto ah u akhriyaa maalin kasta 5 saacadood ilaa 6 saacadood, gaar ahaan wargeysyada iyo dukumentiyada maaliyadeed. Musk waxaa laga yaabaa inuu isagu isugu yeedho saynisyahan ku habboon gantaalaha, maadaama uu ururiyo xog la yaab leh. Waxa Musk ka soocaya kuwa buugaagta uu akhriyaa waa inuu ka faa'iideysto aqoontooda. qaacidooyinkii u sahlay Musk inuu ka gaadho akhrinta faa'iido weyn ama guul weyn ka gaadho. Marka hore, waa inuu dib u eego aqoonta, tusaale ahaan sida nooc ka mid ah dhirta, isagoo dhiirigelinaya dadka si ay u hubiyaan inay fahmaan mabaadi'da asaasiga ah. Tusaale ahaan, ka hor intaanad gelin caleemaha ama faahfaahinta shayga, waxa uu aaminsan yahay inaysan ku filnayn in si fudud loo daboolo walxaha. Waa inaad u guntataa tafaasiil kasta iyo qayb kasta. Kani waa mabda'ii uu naftiisa ku bari jiray gantaalada, waxauna bartay faahfaahin kasta si uu u hubiyo inuu si buuxda u fahmay. Intaynan muuqaalkan oo kale ku kulmin ka hor, haddii ay tahay markii ugu horreysay aad channelkayga soo booqato, waxaan kaa codsanayaa inaad channelkayga subscribe saarto, gambalelkana furato. Haddii aad ka mid tahay asxaabta Mo Carfaadna, muuqaalkiina like saar, wixii faalaana qaybta commentiga nagula wadaag. mahadsanid.